haweeney ka soo jeeda dalka Algeria ayaa sanadkan loo aqoonsaday qofka ugu da'da weyn xujayda sanadkan 2024 intaan ugu gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan boqorka Sacuudi Arabia ayaa soo dhaweyn waxa uu sameeyay haweeneyda ugu da'da weyn xujayda sanadkan 2024 Sara oo ka soo jeeda dalka Algeria ayaa sheegtay in ay jirto da'da 130 sano waxaana loo aqoonsaday qofka ugu da'da weyn ee gudanaya acmaasha xajka sanadkan 2024 talaadii 11 Juun 2024 koox ka shaqeysa Saudian Airlines ayaa waxa ay soo dhaweyn u sameeyeen haweeneydan oo magaalada Makkah u tagtay in ay xajido kooxda Saudian Group ayaa bartooda X ama Twitter ku wadaagay imaanshaha sanadkan ee qofka ugu da'da weyn oo ka yimaaday dalka Algeria muuqaal ay baahiyeen kooxda Saudian Airlines oo qabsaday baraha bulshada ayaa la arkayay markii ay haweeneydan ka soo degaysay garoonka diyaaradaha ee King Abdulaziz ee magaalada Makkah in ay soo dhaweyn qurux badan kala kulantay saraakiishii ka shaqeynaysay madaarka caalamiga ah ee King Abdullah markii ay tabiyeen wargeysyada ugu waaweyn ee dalka Sacuudi Arabia sheekada haweeneydan ayaa waxa ay soo jiidatay indhaha caalamka oo idil xujay badan oo doonayay in ay gutaan acmaasha xajka ayaa gaaray magaalada barakeysan ee Makkah ee Sacuudi Arabia waxayna toddobaadkii hore bilaabeen in ay ku qulqulaan magaaladaasi ilaa maalinkii shalay oo ay dad badan gaareen magaaladaasi saraakiisha Sacuudi Arabia ayaa sheegay in ka badan 1.5 milyan oo muslimiin ajnabi ah ay dalkaasi gaareen intooda badanna ay ku tageen diyaarado in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah ayaa maanta isugu soo baxay buurta Arafah oo ah rukniga ugu weyn ee xajka waxaana la filayaa in ay halkaasi joogaan ilaa gabal dhac maanta dadka Soomaaliyeed ee sanadkan xajinaya ayaa la sheegay in ay gaarayaan 11,000 oo qofood waxaana horkacaya dadkaasi wasiirka awqaafta iyo arrimaha xajka Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ku sugan dalka Sacuudi Arabia dawladda Sacuudi Arabia ayaa dadka gudanaya acmaasha xajka waxa ay ku boorisay in ay raacaan talaabooyinka loo soo jeediyo ee looga hortagayo kuleylka daran ee ka jira magaaladaasi waxaana la filayaa in 40 digrii uu kor u kaco heerkulka magaalada Makkah